السلام عليكم غير شرفت لكم سو دواده kulili TV halka waxaan kugu soo gudbinaynaa nin aaminsan inuu yahay kan ugu labiska qurxoon qaaradda Afrika marmar xitaa adduunka raaciya James Mayne Mwangi ilaa hadda wuxuu aaminsan yahay inuu yahay kan ugu shidan qaaradda Afrika markii laga hadlayo dhanka labiska ama xitaa adduunyada oo dhan markaad aragto dhabna u fiiriso labiskiisa cajiibka ah mar walbana ku labisan hal midab way adagtahay inaad warkiisa ka hor imaato ama aad beeniso markii uu Mwangi soo degay magaalada Nairobi wuxuu qabay kaliya hal shaati iyo hal surweel dadkuna way ku qosli jireen oo caay jireen abi wuxuu ahaa qof qaran wuxuuna kamid ahaa dadkii xurriyadda u soo halgamay wuxuuna ahay qof saboola wuxuu abi weydiistay inuu helo adduun uu isku taago kuna labisto caayda dadkana meel uu iskaga saaray sidoo ku sheegay waraysi uu bixiyay wuuna helo ugu dambeyntii wuxuuna dharkiisa kala midabada ah u adeegsadaa inuu kala dhex daanshoodo gudaha caasimadda Nairobi ee dalka Kenya waxa uu soo jiitay indhaha dadweynaha caalamka gaar ahaan dadka cadaanka ah ee u soo dalxiistaga dalka Kenya Mwangi oo sheegay inuu haysto 160 joog oo suudad kala nooca 200 oo joog oo kaba kala midab ah 300 oo koofiyad waxa uu dheeriyay inuu haysto qalimaan iyo kaafarada moobilada oo kala midab ah wuxuu xitaa dhawaan sameystay gafuur xir oo kaga gaashaato faafitaanka xanuunka COVID-19 kuwaas oo sidoo kale dhowr midab kala ah inkasta oo ay adag tahay inuu kaysado dhar walba oo la soo saaro haddana waa ninka ugu shidan qaaradda Afrika ugu dharka badan inta la og yahay waana ninka ugu dharka badan caalamka markii la eego xitaa madaxda inkastoo madaxda dharkooda la arkin waana ninka caalamka ugu dharka badan inta la og yahay ninka halka shaar wadan jiray wuxuu awooday in bulshadii ku qosli jirtay ay ku amaanaan afkii ay shalay ku caynayeen taasna waa mid lagu yaqaan isbeddelka adduunyada wuxuu waxbarashada ka tagay asagoo 12 sano jir ah markaas uu xoogsi u galay horumarinta noloshiisa ugu dambeynna wuxuu noqday ninka ugu shidan dalka Kenya iyo qaaradda Afrika wuxuu amaah iyo qaab kiri ah ku dhiibi jiray suudadkiisa si uu uga helo lacagta uu ka helo kirida suudadkan wuxuu ku soo gadan jiray suudad cusub su'aasha la isweydiin karo waxa waaye halka uu ka helo dharkan isku midabka ah jawaabteedu waxa laga soo helay dawaarla saaxiibkiis ah kaas oo hadba maradii soo baxda ugu talaqaad casri ah oo soo jiidasho leh lacag dhan 10,000 ilaa 8,000 oo shilin ayaa uga baxda samaynta halkii suud lacagtaas oo ah lacagta dalka Kenya una dhiganta $100 ilaa $800 sheekada Mwangi waxayna xasuusinaysaa dhaqan caan ka ah gudaha dalka Congo dhaqankaas ayaa ah in badan oo kamid ah bulshada dalka Congo inay labiska ka jecel yihiin tiirarka asaasiga ah ee nolosha ninkan ayaana aad caan uga ah gudaha dalka Kenya iyo caasimadda Nairobi iyo guud ahaan qaaradda Afrika غير شرفت لها دي مقال كان أتكاشن لايك سارة شينا شير قريب فيديوغا سبسكرايب من لها جنال كسياد ولا سعطان مقالات دنبيا عن صوتنا وانا مهسنتين وبالله توفيق